musharax daa'uud xuseen jaamac food cadde oo u taagan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Muqdisho ayaa ololaha doorashada ee maanta waxa uu si weyn uga dhex muuqday fagaaraha beerta xorriyadda oo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid maalintiisa labaad ay ahayd. musharax daa'uud xuseen jaamac food cadde ayaa si kaliya laaba ugu mahad celiyay taageerayaasha sida hagar la'aanta uga soo qayb galay banaanbaxa lagu muujinayo xuduudda taageero ee ay u hayaan daa'uud food cadde. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد. maanta oo ay bishu tahay 26 May waa maalintii u dambeysay ee aanu isku soo baxnay fagaaraha khayryada. waxaan dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland u dirayaa hambalyo. waxaan gaar ahaan ugu dirayaa taageerayaasha daa'uud musharax daa'uud oo aniga ah iyo taageerayaasha guud ahaan xisbiga ucud. waxaan leeyahay maanta wixii ka dambeeya waxay noqonaysaa inaynu farteena u meeldayno aynu garayno ninkii ina wadi lahaa ninkii aad la xisaabtami lahaayeen. waxaan leeyahay maanta waxa idin keenay dad oo gol in lala xisaabtamo xisbiga cadaaladda iyo daryeelka. waxaan ugu leenahay na doorta oo nala xisaabtama. wabillahi tawfiiq.